بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإن تشاء تجعل الحزب سهلا. وين ولا السلامين دماتين waxaan doonayna bilaabo casharo ku saabsan computerka waxbarashada computerka ama waxa loo bixiyo IT-ga waayo maanta waxaan barashada computerka waxay ka mid tahay albaabka ku furi lahaa waxbarashada IT-ga qaabiisa kala duwan marka computerku maanta caalamka maanta la joogo computerku aad muhiim u yahay IT-guna waxay international technology waxbarashada computerku wuxuu kala baxaa laba nooc qofku markuu doonayo barto ama basic ama advanced marka wax weeyaan bilowga ama wax si dheero ka sii adag ana waxa ku bilaabana marka basic qofku markuu doonayo computerka inuu barto kolley wuxuu u fakarayo qofku wuxuu lanayaa maskaxdiisa markuu dhaqaajiyo inuu computerku muhiimadiisu waa maxaana u baranaya sababta baranaya waxay tahay maxaana ka faa'iidaya haddaan isku naadan lahaano maanta muhiimadiisu waxay tahay computerku muhiimada weyn uu qaba maanta waxa weeyaan wax walba oo nolosheena ka mid ah uu ka soo qaadala waxa uu fudud qofku sito gacantiisa ku sito waxa ka mid ah computerka baalka mobilka oo markiisa horeba yahay smartphone ka sheegaya oo qaab ka samaysan computerka oo kala si loo geliyo loo isticmaalayo waxaas marka la sameynayna bilowgiisa waxa fikrad loo keenay waxa smartphone-ku computerka oo la yareeyo waxaan marayaa shirkadda Apple bay shirkadda ugu horeysay ee malaha soo saartay wax loo bixiyo smartphone 1990-adii 1993 fikradda ama waxay isla markaa muddo ku soo qaatay si uu suuq u soo geliyaan marka smartphone waxay computer baabuurta waxa saaran iminka baabuurta maanta qofka ninka baabuur ku soo biso oo computer waxa saaran talaagadii hadaa la yiraaho waxa ku xir smart TV nooc walba nolosheena ka mid ah waxa ku xiran wax loo bixiyo computer marka waxa aragnaa nolosheeni wuxuu saameyn weyn buu ka qaatay computerka oo qofku wuxuu muhiim yahay computerku waa ka weyn muhiimadiisu maxay tahay waa ka weyn haddii meel kale ka eegno maxaa ka faa'iidaya computerka waxa ka faa'iiday qofku faa'iido weyn ku qaba waxa ka mid ah maanta marka Europe haddaan u nimaadno dadka Europe joogay caalamka kale aad loo isticmaalo wax la bixiyo electronic paper macnaheedu lama isticmaalo xaashi arji qor hebeelow arji qor iyo hebeelow warqad baan rabaa iga soo saar xadiiska hebel la jiro wuxuu noqday electronic paper noqday warqado electronic qof wax buu dalbanaya computer ku galaya uu ka dalbanaya oo xafiisku doonayo buu galaya warqadii arjigii buu qoraya ama ka soo dalbanaya qofku markuu doonayo wax barasho wax loo bixi distance meel fog qofku ku dhiganayo midna oo kale ama dadka quraanka dhiganaya macallimiinta ardayda waxay kala dhigtaan masaafo kala dhaxaysa laakiin waxa jira wax loo bixiyo Skype waxa jira wax loo bixiyo Messenger waxyaalahaas isticmaala oo kala fududeynaya ardaygii iyo macallinkii jaamacadaha saas oo kale qofku u dhigan kara oo arday noqon kara jaamacad la xiriir kara waxbarashada noqon kara waxa jira wax loo bixiyo YouTube-ka oo qofku wax walba doonayo noloshiisa inuu ka barto توير تيلا كوي waxaan badana eega Soomaaliyeed nahay aad iyo aad ba teknolojiyada u isticmaalna laakiin bilow ahaan meesha qofka bilaabay qaar ba dad ba fi'aba jirta ama qayb dad kamid ah oo aan wali aanan u waadaxsaneen ama u muuqan waxaasi aan waxa doonaya fi'ada midna oo kale inay ka faa'iideystaan computerku muxuu yahay ولو waxaan jecelahay ardayda wax doonaysa barato waayo wasi wadi karaan waa albaabku ka galayo qofku IT wax loo bixiyo waayo IT waxaan waa basic advice oo maanta IT uu fududaaday inuu qofku heer jaamacadeed uu dhigto
لكن الباك هو كجاي واحد سنة وارا قولي من كشاشة ده كمبيوتر كان قبل بدونا oo muxuu yahay computerku marka computerku wuxuu ka samaysan yahay marka hore taariikhda computerka ka soo hadlayna taariikhda computerku waa uu fog yahay 1830 iyo 1820 iyo 1840 ilaa intaas la soo kifaaxay ama la soo wadi computerku si uu loo soo gaaro qaabka maanta computerku yahay oo laptop yahay ama smartphone ahado marka waa lagu soo daaday qaab ahaan si loo yareeyo waa u maran karaa idinkuna waa maran kartaan kolley marka la eego baalka yar smartphone-ka ama laptop si uu yaraado intee buu leekaa marka hore dee uu kolley uu ka weynaa sida uu ka weynaa hadduu doono guri buu leekaa yaa bilo dhan buu leekaa computerku qaab ahaan bilo ma noqon karta laakiin de macna ahaan miisaankiisa cuslaa waanu weynaa qol ilaa intaa wax ka badan u deeqi jiray bilowga markuu computerka bilaabay dad ma caqli isku keenay way caqligooda way kaashadeen waxay leeyihiin bini'aadamku muxuu ka tirsanay waanu bini'aadamku wuxuu ka tirsanay marka hore wax la keenay calculator baashan yar xisaabiyaha lacagtii marka xisaabinayo dadka ardayda dhigta secondary iyo waxyaalaha ugu xisaabiyo waxa maray caalamku waxa channel buu ahaa calculator-ka meesha laga soo saaray ingiriiska kadib u gudbay maraykanka aduu calculator-kii baa lasii waday xisaabiyahan sida loo xisaabiyo laakiin fikrad ahaan sida anu akhristay waxay ahayd baniaadam wuxuu ka samaysan yahay xubno wax galaan xubno iyo maskax iyo xubno soo saarisa xubnaha wax qaadista ee maskaxda u gudbinaya waa maxay dhegaha indhaha weeyaan okay computerku wuxuu leeyahay dhegayo indho buu leeyahay waxaa ka mid ah dhegayo indho waxaa ka mid ah matalan kale microphone ku leeyahay oo wax ku maqlayo indho buu leeyahay kamerad wuxuu leeyahay wax kale oo gacantii ka mid ah oo qaraacista type-ka oo wuxuu qofku qorayo kadib maskaxdii baa u gudbinaya maskaxda xisaabiya weeyaan way xisaabinaysaa macnahaan maskaxdeena doox walba way xisaabisaa oo ma garanaysaa laguma qiyaasi karo maskaxdeena inta xisaabiso iyo computerku inta xisaabiyo kulle maskaxda ka weyn 3 bilyan oo wax bay xisaabin kartaa ma garanaysaa maskaxdeena inta computerku xisaabin karo oo dee uu kululaada computerku markuu xisaabiyo hadday ugu yaraan tahay dee wax hataa markii hata la furo ama kun maahay 30 wax hadaa markiiba isku furtid laptop ama computer hadaa haystid haddana qofku haysan 4 processor okay kernel wax loo bixiyo nawaa kaas baa matalan kale qaadi kara ina konton wax isku furno 60 wax isku furno laakiin hataa isku furno 60 wax cod YouTube baalki program oo waxyaalaha ama daawasho film wixii oo dhan markuu iskuul furo computerku hal mar uu kulaa maskaxda kulaa laakiin bani'aadamku waxyaalaha islaaysiiyay waxa ka mid ah inuu qaadi karo bani'aadamku waxyaalo badan oo intaa ka badan marka iskuma qiyaasi karno marka maskaxda wax xisaabisa xisaabtii way gashay xagga qaab ahaan wax gashay dhegay ka gashay waxay ka gashay matalan samciga nacal microphone-ka waxay gashay indhaha iyo qaraacis type-ka oo maskaxda gudbinaysa maskaxda soo xisaabinaysa wixii oo soo saaraysa shaashada u soo saaraysa ama shaashada waxay u soo saaraysa muraayada dhalada ama hadal ahaan microphone baalka waxay sheegaysaa samacad speaker ka soo saaray codkii wixii gudbinaya ama natiijadu qofku wuxuu helay paper warqad paper bay noqonaysaa warqada la soo saaro warqada lafteedii waxaa ku qoran مثلا كده waxyaalaha inta qofku doonayo scanner ku soo saar wax shay printer ku soo saaray marka waxyaalaha telefoonka asal ka sameynaya si 10 ka bismillaahir rahmaanir rahiim xusuusan qomanaad raaliga noqdo telefoon ban la ku hadii marka imka wax ka bilaabana koo taariikhda computerka waxa haba wadnay وانا كسو هذا تاريخ كمبيوتر كلها هذا كويان صادق ان شاء الله وما شو